ciidankan waa ciidan dhammaystiran oo u baahan kaliya xabadda inuu bilaabo gobolka Sool ka bilaabo reer Sool waxaanu leenahay u diyaar garooba idinku nasiino mar haddii aanu nimid oo annagoo dhammaystiran aanu nimid idinku nasiino u diyaar garooba reer bicdihan waa la yaqaanaa dhaaxu gurmanayay waligiis gurmanayay xabadna waa is yaqaanaan Cali Ibrahim muusow marka waxa inoo dhaxa kaas iyo kaasa inoo dhaxa iyo kaaqba inoo dhaxa waxba noo reeban waxba ku reeban mayne saasana hadalka ku xiriyaa nabadayna cududa ugu weyn oo harti ku xisaabtama ama daarood ku xisaabtama xagga dagaalka waa Cali Ibrahim maantana waxa loo diyaar garoobay in la baxo xabaduna jidhkeena ma xagaan karto حجر dhagaxaya bilxadiidatiin xabaduna jidhkeena ma xagaan karto حجر dhagaxaya bilxadiidatiin xabaduna jidhkeena ma xagaan karto حجر dhagaxaya bilxadiidatiin digaha kabaha ku xidhantiin waa astaan xumaale oo wax lagu xukumo digaha kabaha ku xidhantiin waa astaan xumaale oo wax lagu xukumo garbaad ku xidhantiin waa astaan xumaale oo wax lagu xukumo digaha garbaad ku xidhantiin waa astaan xumaale oo wax lagu xukumo balde حكمها عذابها لغو حريو حارق لغو دبرايو حنولاته حكمها عذابها لغو حريو حارق لغو دبرايو حنولاته أبدي نقول الأدوك الحارتانا لا حرار ما يحباشا لقين ciidankan reer bicdihan kuna wajahan xarunta Laascaanood ee gobolka Sool ayagoo u diyaarsan una soo diyaar garoobay inay u hiliyaan walaalahooda dhulbahante oo dalkoodii iyo dadkoodii lagu soo duulay oo dalkoodii la sheegtay oo deegaankoodii la sheegtay oo caruurtii la gowracayo oo ciyaalkii la usdooxayo oo hantidii iyo guriyihii la duminayo dadkaas oo aan nahay dad walaalo ah isku dhiiga isku dhacaana isku ood aan nahay baan waxaan diyaar u nahay in aynu u gurmano oo naf iyo maalba aan u hurno halkaas oo aan hadda ku diyaarsannahay magaalada Cagaaran haddii Allah awood leedmana aanu dhaqaaqnahay oo aan iska xaadirnayna meesha la yiraahdo Laascaan xarunta gobolka Sool annagoo u diyaarsan in aanu xabad si toos ah u galno awalna waan ku jirnay xabadda horey waa naga dhinteen kuwa badan baa naga dhaawacmay haddeerna waanu soconaa oo hadda kaliya ma aha gurmadku waa naga dambeeyaa ciidan kala diyaarsan ciidanku wuxuu ka yimid gobolka Mudug wuxuuna ku wajahan yahay magaalada Laascaanood Sool dhibta ka jirta iyo caruurta iyo maatada lagu dooxayo oo adduunka mamnuuca ka ah dhibteeda danaqeedu dadka Soomaaliyeed oo dhan wuu wada gaaray ciidankaanuna sidaas uu heegan yahay anagu waxaan nahay ciidanka qalabka sida ciidanka Cali Ibrahim waxaan hadda ka ruqaansanay magaalada Cagaaran waxaan ku sii jeednaa xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood halkaas oo aan waleenahay dadka musajuudan uu ku xasuuqayo magaalada Laascaanood oo hoobiyaha la dhacayo inaanan dhowran karin qof Soomaaliyeed oo dhiig lehna uusan dhowran karin waxaanu nahay gurmad hiil walaal oo harti u socda gobolka Sool xaruntiisa Laascaanood baanu ku wajahannahay waa ciidankii ugu xoog badnaa waxa jira ciidan ka dambeeyo oo imaanahaya ciidankan waa ciidan dhammaystiran oo u baahan kaliya xabadda inuu bilaabo gobolka Sool ka bilaabo reer Sool
iyo ummadda halkaa kaga jirta dagaalka ee dulmiga loogu soo duulay ee xasuuqa lagu wada maata dooxa ah ee waxa foosha xun ay ka dhacayaan lagu hayo waxaanu leenahay u diyaar garooba idinku nasiino mar haddii aanu nimid oo annagoo dhammaystiran aanu nimid idinku nasiino u diyaar garooba waad nasanaysaan Somalilandna waxaan leeyahay iyo Muuse Juudaan iyo dadka uu wato waxaan u malaynayaa waynu isgaranaynaaye sii kooraysta baabuurtiinna waxa in gaaray wax ka fulxin inta in sii gaari lahaayeen ka kooraysta baabuurta aad leedihiin laascaano diyaaradda marka aan marahayo dhagahaygu ha maqleen labadii bay marahayaan haddii ilaahay idmo inta haddii ay dhici weydo waxaan ugu bishaaraynayaa ummadda hartiyada haddii ilaahay idmo iyo garaadada iyo gabdhaha garaadiinta ah oo ka dhawaaqaya miidiyaha dhawaaqiinii waana kiciyey waxaanu filaynay awal wax yaroo aad idinku ku filantihiin maadaama wuxuu ay hunna aad istaqaaneen ay yihiin inay yihiin marka haddii aanu nimid waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inaannu ku xisaabtami doonno waxa laascaanood laga geystay meesheeda kale inaan ka geysan doonno haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay marka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guul iyo gobonnimo waxaanu leenahay haddii ilaahay idmo oo rabbi nafta uu noo daayo wixii horay inoo gaaray Muuse Juudaanow waa lagu boqol jibaaraya haddii ilaahay idmo ciidanka Cali Ibraahin oo galabta ka baxaya degmada Cagaaran ciidankaas oo ku sii jeeda gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood Khaatume State ama SSC sida loo yaqaano rabana inay khasab iyo xoog ay ku qabsadaan adduunka maantay la joogo nin xoog kuma haysan karo nin gurigiisa kuma khasbi karo maanta halkan waxaan ka baxaya ciidankii Cali Ibraahin oo hiil harti horena way u jireen waa u kala horeeyay maantana ciidankiisa ugu faraha badnaaba Cagaaran ka baxaya markastana hiil harti baanu ahaan jirna waanu nahay cududda ugu weyn oo harti ku xisaabtama ama daarood ku xisaabtama xagga dagaalka waa Cali Ibraahin maantana waxa loo diyaar garoobay in la baxo ninna gurigiisa laguma maamulo Muusena waxaan u sheegayaa ninkii soo duulay baa maxay ahayd geeridu dhibaysaa wiil iyo gabar iyo islaan iyo ilmaha gurguranaya kan dhabarka lagu sido diyaar waxaan u nahay reesool inaan u hiilino naf iyo maalna aan ka hagran baan diyaar u nahay Muuse insha Allah madaxtooyada isugu imaanayna xasuuqa aan laascaano ka wadina insha Allah Hargeysa ka dhacaysa waana isugu imaanaynaa hadalkana badin mayno annagu Cali Ibraahin baan la yiraahdaa reeb ciidan baan la yiraahdaa waana la yaqaanaa mana faanayno taariikhda meel baan kaga qorana haddaanu Cali Ibraahin nahay taariikhda meel la yaqaanaa kaga qorana horeyna waa ugu dhimanay Sool haddana waa ku dhimanaynaa diyaarna waxaan u nahay naf iyo maal midna inaanan hagran baan diyaar u nahay Muuse marka waxa inoo dhaxa kaas iyo kaasa inoo dhaxa iyo kaaqba inoo dhaxa waxba ha noo reeban waxba ku reeban mayne saasaan hadalka ku xiriyaa nabadayna